Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee, observed wuxuu arkay the Jews fasting on this day, Yahuuda oo sooman maalintan, to commemorate si ay u xusaan their deliverance samata bixiyahooda ama badbaadiyahooda. And he recommended Muslims, nabiguna wuxuu kugula taliyay muslimiinta to also fast, sidoo kale inay soomaan. The Prophet sallallahu alayhi wasallam, nabiguna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee, said wuxuu dhahay, we are closer to Musa, anaga ayaa idinkaga dhowi Nabi Muuse, than you are idinka. Intaa idinku u jirtaan iyo intaa anaga u jirno, intaa anaga aan u jirna ayaa ka dhow Nabi Muuse calayhi salaam. And advised Muslims, wuxuuna ku waaniyey muslimiinta to fast Ashura, inay soomaan maalinta Ashura, either midkood inay soomaan for 3 days, 3 maalin midooda inay soomaan, 9 sagaalaadka, 10 tobanaadka, and 11 iyo 11aadka. For 2 days, 2 maalina ayaa loo baahan yahay, 9 sagaalaad inay noqoto and 10 iyo 10aadka inay noqoto, ama just the day ama maalinta of Ashura itself, ee Ashura laftigeeda maalinka inay soomaan. Fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like, bye bye.